ما حسن شيخ doorasho qof iyo coda magaca kaliya ka wata laakiin macna ahaan iyo farsamo ahaan doorasho qof iyo coda xasan sheekh hadda ma wado waxa hadda baydhabo ka socda doorasho qof iyo coda ma aha doorasho qof iyo coda shuruuday leedahay waxyaabaha shuruudaha ugu muhiimsan waxa waaye qofka maamulay doorashada inuu ka madax banaan yahay dadka tartamaya siyaasadooda dadka qofka doorashada maamulaya inuu yahay qof sharcigana ilaalinaya ilaahayna ka cabsanayo dadka u kala eexanay qofkaas wuxuu u baahan yahay waqti ku filan in la siiyo oo dadka ku diiwaan geli karo oo isla markaasna maaragtay aan haba yaraatee aan yani codbixinta aan la musuqmaasuqin qofna gooni aan cadaadis loo saarin qofna gooni aan lacag loo siin qofna gooni aan awood iyo power la siin marka hadda ani waxaan isleeyahay doorasho qof iyo coda waa doorasho ikhtiyaari ah shacabku qofka uu rabo dooranayo qofka uu rabana uu diidayo laakiin tan hadda socota taas maaha laakiin dadka ku andacoonaya waqtiga dartiis su'aala meesha taala su'aashu waxa waaye haddii la yiraahdo waqtigaan ugu yaro ninkan waqtigiisii waa dhamaystay waqti kalena ugu dari mayna doorasho dadban hal la qabto sanad kasta ma doorasho dadban la qabanaa su'aasha loo baahan yahay dadku inay ka fakaraan sanad kasta ma doorasho dadban aan qabsanaynaa 2016kii doorasho dadban aan qaban 2020kii doorasho dadban aan qaban mar aan extension dhicin lama arko 16kii xasan sheekh wuxuu ku darsaday 5 bilood iyo baro ku darsaday tii ka horeysay xukunka sheekh shariif hal sano lagu daray tanna hadda farmaajo wuxuu ku darsaday hal sano iyo bar ama hal sano iyo 5 iyo baray ku taqriiban marka caqabadan in laga gudbo oo si istaraatiiji loogu gudbo oo doorasho qof iyo coda inta suurtagalka ay ka tahay la qabto oo wadanku hore u socdo ayaa waxay ka fiican tahay wadanku inuu maaragtay meeshaas istaagin doorasho dadban taagnaado dooda loo baahan yahay mucaaradku inay wajahaanna waxay aniga ila tahay inay tahay doorashada qof iyo codka shuruudaheedii dawladdu ha soo dhameystirto doorashada shuruudihii lagu aamini lahaa dawladdu shuruudahaas ha soo dhameystirto laakiin dooda hadda ah in maaragtay si aan extension uga hortagno doorasho dadban aan qabanayna ka bacdina lacag aan farqaha ku shubanayna codka waa soo iibsanayna musuqmaasuqa hadda socda oo ay ka cabaadayaan mucaaradka abritana imaanay ayagaana sabab u noqonaya in musuqmaasuqa uusan istaagin qofka hadduu aamino qofka codka waa soo iibsanaysaa qofaad codkan waa soo iibtishatay qofaad matashay lama arko waxaad rabtaana samayn kartaa inta xukunka ku fadhiso nin xildhibaan oo dawladda la xisaabtamaya ma leh laakiin xildhibaanadu waxay isu bedeleen dad ganacsato ah oo awoodda ay haystaan oo maaragtay mansabka ay haystaan inay awoodooda ku gorgortamaan dawladda waxay ka qaadan lahayd dawladduna waa u sahlan tahay maaragtay inay maaragtay lacag siiso dhul siiso jaga siiso yani iska laaluushto si aysan haba yaraatee la xisaabtankay meesha uga baxdo markaan waxaan isleeyahay Soomaaliya haddii la rabo inay hore u socoto waa inay dhacdaa doorasho qof iyo cod ah oo shuruudaheedii wadata doorashada qof iyo cod oo magac kaliya sida hadda socota aniga kulay ma qabo inay saxto